بسم الله أخيار تشرفت عليه dadka qiimaha badan leh soo ajiibay runtii Sheekh Maxamuud inaan ka dambeeyo aad baan uga xumahay cilmiga iyo aqoontii iyo wixii loo baahnaa maansadaan soo diyaarsaday waxa la yiraahdaa magaceeda anuun baa waalidka iga raali ahada haddaydan ku dheeraato ما وكاسا ولا يقدر قيلنا وحلا هديرين لكن واحد ولا بقول حلا يقول تلاقي كيسي النظام كيسا وحلا يراهدا أنون بوالدك لما إري أو كهرمارنا هدان شيء وحويان أنت هالكفر إذا لفتي جودا إن بدروا والدين تود نول يهين باجرا أو وح أنكوا عند الله كدونا إنه لقد دونا يو marka waxaan bilaabayaa maansadii wanaagsan wiilkayo wacanay gabadhaydiyeeya anoo weheli ku raagay anoo warwar ii dhamaaday kashkayga walaac ka buuxo anoo wehel ubad u baahan cidladu weerar igu hayso cabsidu igu weyraxayso markii weynuhu isiiyay warsame iyo adigan warisa maxaan faraxgeedu waabay maxaan sugi waayay waaga kuwii igu wiirsan jiray iyo maxaan waray kuugu faanay wadaado maxaan u yeedhay u loogay wankayga buuran maxaan duco kugu wareejay kuwa kaa waabay ilcawriyaad kuwii weynuhu isiiyeen weydiistay ilaahayowa kuwii aan ugu wanqalay asmaada wanaagsanow haddii aan waalid ahay wanaag iyo hoysamaba u soo joogay waayo badan haddaan ahay waaya arag wax badan soo jiray adduunka haddaan tala waafiyo waaniyo waxtarkuugu baaqo wiilkaygow may dhagaysan wacadtii aan dhalaae wehelka qura ii ahaydey warkaygan maru dhug yeelo maah wax ku oolo oo murtiyabaa waxay tidhaa wiil yari inta uu iswaaluu waraar ka tallaabsadaa weydaartaa talada wacan weedhiisuna waa sidaa haddaan waadax kuugu sheego warkaygana kuu caddeeyo waayeel waxaa laga hayaa wanaag ninka doonayow talada weydii waxgarad ha moogaan waalidka haddiidin warkiisa yeel waanada waa lagu koraaye waayeel waanada waa lagu koraaye weynee waxa lagu yidhaa haddaan dhan kale u wareego wax kaa tuso meel kaleeto wax biirso intaad isleedahay waxaad haysataa hawaayin nacabka kugu waran waryoonee wantaataca kugu akhrinaya madiiduu ku wadaaye beenlowgu ayuu ku wadin wax sheegu balaaya maahee ha noqon weel lagu adeegto waadaan aan waxa ku jira wanaag iyo xumo midnaba warkeed hayn waa balaayo wadkaaga adigu ha raadsan waddada loo mara cadaabta weynuhu wuxuu nooga digay ka waantow wiilkayow diinteennuna waasac weeye weynaanta ilaah baldheeho waayeenkiisana u fiirso qur-aankiyo weedhihiisa axaadiista waafiga ah wacdiga culimada wanaagsan haddaan wax ku qaadan weyno waddada sow seegi mayno maansadu waa waana waalid dareen ku wajahan dhallaanka ka mida wacyigelinta maanta walaalnimo wada shaqayna wanaag tabantaabadii ah xil iyo waajib gudashadii ah dunidu waali uma baahna samaan bay weheshataaye xumaani wanaag ma keento haddii weerar iyo dagaal wanaag nooluhu ku heli bal eeg waddankaan lahayn wisiisiga qayladiyo waraaqa carruurta iyo waayeelka baahida la wiiq leh hooyada wiilkeedii weyday walaaliyo wehel ka samirtay cidlada keligeed ka wayle dunidu uma baahna waali
wareer iyo waran afaysan wixii weynuhu xarrimay wacdiga laynoogu sheegay qur-aanku samuu wadacaye shaydaan weydaartay diintu ayuu walle kuugu dhaaran hilinka weyn adoo arkaaya wadiiqada halistu taallo maxaa kugu weecinaya ninkii kuu wada wanaag weydii weedhahan runta ah raggii uu horay u waday kuwii uu ku casheeyey weerku kuwii wiishku uu la go'ay war iyo kuwii aan wacaal wax sheegayaba lahayn waddadii uu marsiiyey shalay miyuu adna kugu wadaa ninkaa waysada u qaatay inuu wadka kuu horseedo samaan ma waxyoonayee ka dheerow weedhihiisa ninkii tala kula wadaaga markuu warinayo xaajo maankaaga war dib ugu celi miisaan waxa uu yidhaa haddaad wax ka garani weydo waayeel iyo ruux waxgarad ah wargeli weydii xaqiiqda wadaaji wixii uu sheegay waxuunbaa kuu caddaane wanaagsana wiilkayowa wacane gabadhaydiyeeya muhiimadda waalidnimo warkeeda ma kuu galaa dadkeennu markuu wareeray markii waddankii la boobay markuu walacleeyey dhiigu markii dacar lays waraabshay markii ehel wada dhashay warmaha isku soo afaystay carruur laga waaban waayey waayeelkii la cisi waayey colaad waran laysu qaatay maxaan kaa weecshayoon adiga wadnaha iyo waaxyahayga maxaan waabkaaga yeelay wadkii kula tegi lahaa warankii kugu dhici lahaa korkayga maxaan u weecshay muxuu warwareemay jiirka maxaa webi soo rogmaday oo waaheen kugu dari lahaa ii dhaaf wiilkayga oo ku idhi aniga iwalwaalo anoy baahii i wiiqday anoo wahan oon la liita adiga weel kuu daboolay anoon kuu haynin waab waraabihii ubad ka mariyey widayda maxaan ku daalay wacnaantiyo quruxdu maaha waxaad adu keensataye weynaanta ilaah ku siiyey weedhaadaa lagu qoslaayo iswaaxwaax jalaqsanaanta isweynaynta waxismoodka kasako weynaha xaggiisa sharafta waalid baa lahaa inaad waaya arag ahaato adduunka ku soo wareegto wixii jira aad ogaato aad bay u wanaagsan tahay waxaase ka sii wacnaa adoo garta waajibkaaga adoo hadba waaga jooga dadkaaga la waabariista ogaadana waayihiisa iyo wixii ay ku sugan yihiin inaad kelidaa wax noqoto dhiggaa ugu waracsanaato qayrkaana ka waafi noqoto aad bay u wanaagsan tahay waxaase ka sii wacnaa waraababa wehel la'aan ma weerara duunyadee inaad wehel adag lahaato hareertaada waran la taagan inaad cilmi waasac iyo aqoon weyn aad lahaato aad bay u wanaagsan tahay waxaase ka sii wacnaa waayaha dunidee wareersan aad bay u wanaagsan tahay waxaase ka sii wacnaa hibada weynuhu ku siiyey isweynayn inaad ka dhowrto waddani daacada ahaato wax kale adigoon samaynin inaad waalidkaa addeecdo ceebtaada wareejin maayo inaad waxba yahay ahaato qayrkaa ugu wada dambayso adoo wax ah baan ka doortay haddaad si walba u wareerto haddii aad waale cararto waxaan ku idhaa ka roorto warkaygana yeeli weydo shayddaanaad wehel ka dhigato wuxuu ku yidhaahda yeesho weedhayduna kula yaraato markay tala kaa wareerto
afmiinshaarkuu ku waalo markuu cidla kaaga weecdo markuu sun intuu walaaqo waabaydiisa aad ka dharagto waydaadu markii ay yeedho waqgiriyaadaad istaagto adoo weer cadigu duubay adoo wiilashay guriyey wadnuhu dhiiggay habaayo anoo wahmayo huraaya warkaagu markuu yimaado waraaqaagiyo baroorta waywayda wala ismoodka haddana kugu wiirsan maayo anaa dhibta kula wadaagi anuunbaa waalidka ah runtii kalabarh baan ka booday waa maanso aad iyo aad u dheer xaaladana ka hadlaysa oo runtii aan kaga hadlaayay waxaa muddada dheer soo socday aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaad dhegaysateen